أنا هلكن كسي سجوتينو سلمان هذا أو هيها مستبدك قدية مستبدك UK كم إذا وذي إيسلندا كم إذا وذي إيسلندا كم إذا وعداقي حسبها أنا رسمي عاوز شو يدور نسيت سجوتينو أجد من فرح سنة هاي سلام حوتك يا كامبين كحسب الكلمية عن رجينا يرنقو إنه واحد بدأ كقبل دونا مركو دلكي تبع إن شاء الله بإذن الله كريم أنو أدي أدوكم ما حد نقينا مسؤولين تأيي تاجرياش إيو تدوينه حرير سوماليلاند سيدي حلقة السينما دلهايد وناكسنيد أي أو تاجرين أي سوبر بريستاجين حسبك شرف بينات هاي هدانو نهاي حسبك كلمية meel kastoon joognaba waxaan leeyahay saaxiibkay Saleebaan jidku Toobiye qoraxdu dalaalimo dhulku taako waxaanan hubaa inuu Saleebaan yahay nin wax weyn ka tari doona hawlaha imika ka socda dalka halkan waxaan caawa ku sokoteen hadaan laantay Islaam Saleebaan aadan farax oo ragga miisaanka ku leeyahay magaranaysa Islaam كلمية أهلا مستلبات حسبك أهلا تراقبين كي مدرسة يا شباب حسبك مركز إن شاء الله وعن هالكن نقول في دعينا إلى هالجتون ورد التوبيل وعن العروس ومدرسة هاي كتيجي مدرسة هاي لندن إن شاء الله وحن وبرينا إلى هاي هوشة وصعدنا إلى هاي نوفر ليه مقرنسي هاوشا ka socotay maanta dalkii Soomaaliland aniga oo Abubakar Ibrahim Xasana waxaan ku darayaa oo ku beeranayaa ducada iyo sagootinta hore loo sheegay raga iga horeeyay sheegay Saleebaan halkan markuu joogana waa nin ka muuqdo oo waxa uu ku foogan yahay iyo shaqadiisa la arko حقنا ولولها iyo hawsha imika ka bilaabatay isbiga ayu qayb ka noqon doona ilaahay nabad geliyo oo duceynayna waa dhiirigelinayna wixii halkan waxaynu ku bixinaynaa oo ku macasanaameynaa gantaalihii xisbiga kulmiye kuwiisii ugu horeeyay maxaan ku dhahdaaye ololaha Soomaaliland ka bilaabmay shalayto maanta ka bilaabmay insha Allah taala xisbiga kulmiye ugu bilaabmay runtii ka qayb qaadan doona waa gantaalaha xidida dheer leh insha Allah taala aynu u baahanahay inaynu guushi ku dhalino sideedaba hadaynu xisbiga kulmiye gaar ahaan London iyo waliba East London oo caaw muslimiintii laanta halkan fadhiyaan guul kasto ka dhalatay Somaliland oo xisbiga kulmiye kooko yahay iska ayaa laga dhaliyaa rag dhalin jiray uu Saleebaan kamid yahay waxaan jecelahay insha Allah taala Saleebaan inaynu si ducayno ilaahay ku nabad geliyo deeqii xisbiga kulmiye uu bilaabmay Saleebaan oo imika tagay iyo rag badan oo ku horeeyay iyo anagoo ka dambeyn doonaba waxa loo tagayaa runtii waa guusha kulmiye runtii maanta doorashada maanta dhacaysa ahmiyad weyn bay noo leedahay mid kasta oo hore inoo soo martay runtii aad bay uga muhiimsan tahay maanta waxa inoo ballana sidii aynu xisbiga ugu dadaali lahayn waxqabadkiisa iyo mustaqbalkiisa iyo barnaamijkiisa aynu dadka ugu sifayn lahayn Saleebaan waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu guuleeyo safarkaaga Ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu soo nabad celiyo safarkaaga waxa la adag bal ugu jira waxa doorasho lagu jira Saleebaan waxaan rajayn doonaa inuu wax weyn ku soo kordhin doono doorashada ka dhici doonta wadankeena ay ka harsan tahay muddo aad u yar waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa laanta bariga London ee xisbiga kulmiye oo ugu horeeyo gudoomiye Saciid Xaaji Xasan iyo gudoomiye ku-xigeenka Axmed Saleebaan iyo dhammaan xubnaha fayeenka iyo xogayaasha kala duwan ee bariga magaalada London
casho sharaftan iyo amba bixintan ay caawa ii sameeyeen aad iyo aad baan si kalsooni leh aan ugu mahadnaqayaa waxaan ilaahay ka baryayaa in ilaahay dalkii nabadgeeyo sida aynu la wada soconno dee dalkii wuxuu galay marxalad doorasho marxaladdaa doorasho un baan aniguna wixii aan ku biirin karo aan ku biirinayaa xisbiga maadaama aan mas-uuliyiintiisa UK ka mid ahay waxaan qabaa in xisbiga kulmiye uu yahay xisbiga keliya ee qarankan waxna hore uu qabtay imikana gaarsiin kara himilada uu qarankani ku hamiyey madaxweynaha murashaxa madaxweynaha iyo madaxweynaha imika jooga Axmed Maxamed Siinayo oo inagula ballamay waqtiga ay markuu wareejiyey taladii qaranka uu dalka doorasho geliyey in uu maadaama yahay waay arag siyaasadeed inuu cidda uu dalkan u xulay ay tahay labadan nin sharaxane Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylic waxaan qabaa cid kasta oo dalkan ay ka hayso la xijeclo dheeraadi inay qaadanayaan dardaaranka madaxweynaha laba isqaban mayso nin kale madaxweynuhu wuu fiican yahay wax fiicanna wuu qabtay iyo dardaarankiisa qaadan maayo labadaas isqaban mayso waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay in talada mar labaad xisbiga kulmiye uu ku soo noqdo si uu u dhammaystiro mashaariicda horumarineed iyo hanka iyo himilada uu dadkani higsanayo oo ay ugu horeyso inuu ka helo ikraaf caalamiya beesha caalamka